Christopher Columbus wuxuu ahaa nin Talyaani ah wuxuu noolaa sanadihii 1451 ilaa 1560. Christopher wuxuu ahaa badmaaxiye oo aad ugu safri jiray wuxuu raadin jiray dhulalka ama qaaradaha. Christopher wuxuu ahaa ninkii helay qaaradda Ameerika sanadkii 1492. Christopher wuxuu ku dhashay magaalo ku taalla waqooyiga Talyaaniga oo la dhaho Genova. wuxuu badda ku safri jiray isagoo da'yar. Aabihiis waxaa la dhahaa Dominico Columbus, hooyadiina waxaa la dhahaa Susana Fonterrazza. Sanadku markuu ahaa 1488, Christopher wuxuu tegay waddanka Portugal, isla markaana wuxuu dhinaca galbeed ka raadinayay jidka taga waddanka Hindiya ee dhinaca badda. Christopher waxa caawinayay dad ay ka mid yihiin boqortooyadii Boortaqiiska, isla markaana waxay ku heshiiyeen haddii uu dhul helo in ayaga lacag ka helayaan dhulkaas. Sanadku markuu ahaa August 1492 waxaa bilowday safarkoodii. 3 maraakiib ah oo ay saarnaayeen 90 qof ayaa u safartay dhinaca galbeedka ee badweynta Atlantic. Kadib waxay tageen Ameerika iyagoo rabay inay tagaan Hindiya. Isla sanadkii waxay tageen meel jasiirad ah wuxuuna helay waddanka Cuba. Hal markab ayuu uga tegay meesha. Markaa ayay dhacday in dadkii saarnaa markabkaas inay raadiyeen dahab. Sanadku markuu ahaa 1493 Christopher dib ayaa u soo noqday isagoo 8 Indiana soo afduubtay. waxa uu ahaa nin tuuga oo musuqmaasuq ku caana. Sanadku markuu ahaa 1493 Christopher wuxuu ka safray magaalo ku taalla dalka Isbaaniya oo la dhaho Cadiz. Markan wuxuu ka haystay 17 maraakiib iyo dad gaaraya 1200 qof. Isla sanadkaa waxay heleen jasiirado ka mid ah qaaradda Ameerika oo ku wareegsan waddanka Dominica, markaas oo uu 46 jasiiradood hal mar wada booqday inta uusan tegin jasiiradda weyn ee Hispaniola, meeshaas oo uu safarkiisii hore uga sii tegay. Dadkii la safrayay qaar ayaga ka mid ah way dhinteen markii ay Isbaanishku si xun ula dhaqmeen dadkii dariskooda ahaa. Christopher lacag buu ku bixiyay dibudhiska Hispaniola. Maraakiibta Christopher waxay u sii safreen waddanka Cuba. Sanadku markuu ahaa 1494 Christopher wuxuu cilmi baaris ku hayay jasiiradda Cuba iyo Jamaica. Isla sanadka Agosto Christopher dib ayaa ugu soo laabtay isaga iyo dadkiisii iyagoo wata dad 100 ka badan oo addoomo ah. Dadka adoonsiga lagu soo watay badanaa tahriibka kuma noolaanin. Markii uu markabkii soo galay waddanka Isbaaniya, boqortooyadii Isbaanishka ma kala jecleen addoomaha, isla markaas qaar baa la sii daayay. Christopher wuxuu rabay inuu lacag badan ka helo addoomada sababtoo ah dahab ma soo helin markan. Haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan subscribe saar, sidoo kalena nagu soo biir si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale.